بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، dadweynaha iyo maamulkaba dhammaantiin waa idin mahad celinaya. intaa kadib darsi ku saabsiisan qofka muslimka sugnaantiisa iyo toosnidiisa uu ilaahay kitaabkiisa ku toosnaado iyo diinta islaamiga ah ayaynu wax ka tilmaami doonaa. dhaqanka aadanaha ma aha in weecweecad laga waayo. aad bay ugu adagtahay bini aadamku inuu qumanaado bes. waxay yidhahdeen min caadati linsaan waxaa ka mid ah tadabdub, inuu isbeddel uu ku dhaco. waa caadada bini aadamka fii kulli shayna weeyaan tadabdubkaasi. hadday shaqo tahay, hadday dareenka tahay iyo mashaacirtiisa, hadday tahay nashaadkiisa iyo activitigiisa. qofka bini aadamkii bay dhahaan joogtayntu sideeday ugu adagtay. sida awgeed mar waa nashiid, mar waa caajis, mar shaqo badan buu qabanayaa, mar waa wahsanayaa, mar dareenkiisa farxad baa ka muuqata iyo raynrayn. isbeddelkaasi markaa bini aadamkaa dareemadiisa asal buu ka yahay bay yidhaahdaan. inuu markaa sugnaado oo toosnaado, qumanaada, waxay culimmadu yidhahaan waa mujaahada. waa shay dadaal dheeraada u baahan. toosnidu iyo qumanaantu, istiqaamadu iyo habaadku, sugnaantu waa isku macno dhadhow yihin. midi waa inuu qofku mabda'a ku toosnaado, aanu ka weecweecan. inta badanna marka laga warramayo shahwaati nafsiga iyo wixii la halmaala ayaa la yidhahaa qofku waa inuu sugnaadaa, waa inuu toosnaadaa, qumanaadaa. mararka laga warramayo shadaa'idda iyo mashaakilku markuu qabsadana waxaa la tilmaamaa iyana waa qumanaantii una, laakiin sugnaan bay ku tilmaamaan. marka haddii la yidhaha waa habaat iyo haddii la yidhaha waa istiqaama, marna waa isku macna intooda badan. mararka qaarkoodna waa la odhan karaa bacdu awjuh alikhtilaaf baa ka jira. ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahay isagoo inooga warramaya dardaaranadii ambiyadii, ama isaguba ina farayo. nebi yacquub markuu dhashiisa la dardaarmayay wuxuu ku lahaa: yaa baniya ina allaha astafaa lakum addiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. carruurtaydiyey buu leeyey dhashiisii isagoo la hadlaya: in allaha astafaa lakum addiin, ilaahay wuxuu idiin doortay diinka kan kuwii ku dhaqma ee rumeeya ina ahaataan. falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun, ha geeriyoonnina idinkuwa muslima mooyaane. geerida lama garanayo goorta imanayso. macnaheedu waxa weeyaan qumanaada inta geeridu idinka imanayso. maadaama aan la garanaynin geeridu qofka goorta ay ku imanayso. yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah, ilaahay badan buu qur-aanka inagu leeyahay alla ka cabsada, oo la yidhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun, ha geeriyoonnina idinkoo muslina mooyaane. wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin. nebi maxamed baa ilaahay subxaana wa tacaala wakhti dhib aad u badane ay quraysh ka haysatay, ilaahay baa ku yidhi wacbud rabbak, rabbigaa caabud intaad geeridu kaaga imanayso, intaad yaqiinta ka arkayso. si awgeed waxaa matluuboo laynaga wada rabaa, ambiyada laga rabaa, dhasha ambiyada laga rabaa, dadweynaha caadiyana laga rabaa. waxaa laynaga wada rabaa waa maxay? ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. inaynu alle subxaana wa tacaala ka dhowrsanno oo aynan
geeridu inoo iman ilaa iyo inaynu muslim nahay mooyaane maadaama nebiga ilaahay ku yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nebiguna calayhi salaatu wasalaam ducooyinka ugu badan ee uu ilaahay ku baryayey xadiidka tirmidi ibnu maaja warinayaan sheekh albaanina saxiixa ku tilmaamay waxa badnaa baa la yidhahdaa nebigu inuu ku ducaysto yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik ilaaha aadanaha qalbigiisa gegediyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada saxaabi baa weydiiye wuxuu yidhi yaa nabiy allahi aamanaa bik wabima ji'ta bih fahal takhaafu calayna oo waaba ku rumaynay wixii aad la timina waa rumaynay miyaad noo cabsanaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nacam ina alquluuba bayna usbucayn aw bayna isbicayn aw bayna isbacayn taba waa la akhriyaaya ina alquluub qalbiyada bini aadamku waxay ku jiraan laba farood oo ilaahay farihiisa ka mid ah yuqallibuhaa kayfa yashaa ilaahay baa siduu doona u gegediya maadaama gegadoonku uu suurtagal yahay nebi maxamed wuxuu baryayaa ilaahay subxaana wa tacaala in rabbi qumanida iyo toosnida iyo sugnaanta uu ku hayo waxaan rabnaa markaa dadaal badan inaynu ku bixinno waddada dhexe naf iyo shahawaadkeedii baa jira shayaaiin alinsi waljinni baa jira mahma adigu aad tala gaadho caqabadaa ka hor taagan cid kugu riixaysa jidka inaad ka weecato tiro badan baa jira oo ay ka mid tahay shahawaadka lagugu abuuray lagugu itixaamay shahawaatu nafs xoola jacayl baa kugu jira xidhiidhka rag iyo dumarka dhex maraa qof walba ku jira baahiyo badan baad qabtaa waxaasoo dhammi waa wax kugu riixaya sidii waxaa loo heli lahaa inaad u xidhxidhato mar labaad waxaa jira shayaaiinu aljinni walins dadka badh shayddaama ah oo ilaahay ku tilmaamay inay shayaadiin yihiin dee wixii waddada qaldan dadka ugu yeedhoo dhan baa shaydaan ah ama jin ha ahaado ama insi ha ahaadee marka shayddaannimadu waa dhaqan aadanuhuna leeyahay jinkuna leeyahay jinka inta dadka xumaha ugu yeedha waa shayddaamo aadanaha inta xumaha ugu yeedhana waa shayddaamo haddii bini aadamku uu adkaysan kari waayo xaqa weydaarto oo kuwa aad aqbasho isagoo ilaahay nebigiisii la hadlaya calayhi salaatu wasalaam buu wuxuu leeyahy wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftarii calayna gayrah waida latakhaduuka khaliila walowlaa an habbatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shayئa qaliila idan laadaqnaaka ضicfa alxayaati waضicfa almamaat uma laa tajidu laka calayna nasiira nebi muxamed calayhi الsalaatu wasalaam waa ummadda horseedkeedii iyo hogaamiyaheedii waa ummaddu cidday ku dayanaysay laakiin ilaahay wuxuu leeyahy waxay u dhowaadeen inay kaa fitneeyaan wixii aanu kuu waxyoonnay wax ka mid a si aad waxaan ahayn noogu been abuuratid baa ilaahay leeyay taftariya calayna hayra waida latakhaduuka khaliila haddaad tooda aqbali lahaydna waa ku soo dhowayn lahaayeen baa ilaahay leeyay saaxiib bay kaa dhigan lahayd aadamaha barh baa jira kugu dirqinayo kugu cadaadinaya xagga xumaha inaad u weecato ama bulshadu ha noqdo dhaqamiyo xeerar ay leedoo diinta khilaafsan ama ha noqoto dhan hunguriyo ay kaa soo maraan ama wuxuu doonaba ha noqdee dadka barh baa jira kugu cadaadinaya inaad u kacdo xagga ambadka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya markaa nebigiisii xataa inay isku dayayeen calayhi salaatu wasalaam inay dhankaa u kaxeeyaan ilaahayna wuxuu sheegay haddaad ka aqbasho latakhaduuka khaliila saaxiib bay kaa soo dhiganayaan markaa wararkaa hebel waa nin ragaa lagu leeyahy waa markaad jarka ka boodo waa lagu soo dhowaynayaa ilaahay baa markaa qur-aanka wuxuu leeyay walowlaa an habbatnaak haddaanan annagu ku sugi lahayn
laqad kidta tarkanu ilayhim shay-an qaliila waxaad u dhowaatay inaad in yar xaggooda u weecato haddii nebi maxamed sidaa loo gelayo maxaad adigu u malaynaysaa qof feejigoo soo jeeda oo waxna garanaya sax iyo qaladku u kala cad yihiin diinka iyo diinla-aantu u kala cad yihiin soona jeedaoo mowqif qaadan karaya ayuunbaa badbaadaya ilaahay wuxuu leeyahy nebigiisi moxamed haddaad weecan lahayd idan laadaqnaka dicfa alxayaat waa laysu idaafeeyey dicfa alxayaat dicfigu asliyan waa laban laab halkan laakiin waxaa looga jeedaa bay leeyihin shiddat alxayaa nolosha adeeggeedaanu ku dhadhasiin lahayn kadeedkeedaad wax ka arki lahayd gefkaaga abaalmarkiisaaad arki lahayd baa ilaahay leeyahy haddaad waddada qaldan cararto waddo qaldan waxa ka yimaadaan waa maxay waa waxaan la mahadin marka ilaahay nebigiisii wuxuu ku leeyahay haddaad jidka qaldan mari lahayd abaalmarkeedoo kakan baad arki lahayd wadicfa almamaat ay qabla almowt bay culammadu iyadana ku tilmaamaan taa macnaheed waxa weeyaan dhibaatadu aadamahay ka timaadaa wuxuu sameeyo haddaad marka xaqa weydaarataan mashaakilkeedaa la kulmaysaa cid kaleoo kuu gargaartana haddii ilaahay imtixaanka kula rabo ma jirtaba alla tilmaamaya qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa carabi mahmaahay taqaanay waxaa jirta bay mufasiriintu sheegaan islaan xanuunsanaysay horeer makaad ahayd gelinka hore xadhig bay tidicdaa tidica sooma taqaaniin xadhig bay soohdaayoo tidicdaa gelinka dambena way furfurtaa marka waa qof madaxa looga jiro taasi waxay keensatay inuu gelinna wax dhiso gelinna wax dumiyo bini aadamku waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo war qofkaasi waa waalanyahy in badanoo dadka ka mid ah sidaa ku wada masaajidkaad soo gelaysaa waad cibaadaysanaysaa waad wardiyaysaa hadhow baad noqonaysaa maqaaxidaad tegaysaa dadkaad xamanaysaa waxbaad akhrinaysaa intii yaradaad soo shaqotaad rogaysaa haddana saaska rogada marka marna waad xaggaad u socotaa saacadda kalena haddana xagga kale aad u socotaa waxaa laynaga rabayna waxayd inaynu sugnaanno khayrkaynu shaqaysanno inaynan iska dayacin inaynan xan iyo damunuub iyo mashaakil kale ku dayacin waxoogaaga yara khayrkaad soo shaqaysato si awgeed baa ilahay wuxuu leeyay walaa takunuu kaalatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankaatha ha la mid noqonina sidii tii xadhigay tidicday ee soo hoday dib u furfurtay intay adkaysay kadib baa ilaahay leeyay tii xadhigii intay tidicdo haddana dib u furfuraysay taasoo kale ha noqonina baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala aadanuhu waxaa dhacay inuu wanaag hayo laakiin mararka qaarka inuu daciifo dabeetana istiqaamadu ka lunto walciyaadu billaah iyo dadka barhbaabay kaba luntaaba diintuba marka hore bini aadamku xaqa xoog uma wacdaa in yar buu wacdaa angal yar 2 degree 1 degree baa laga yaabaa laakiin muddada hadday dheeraato israarkaagu iyo dembi ku madaxadaygaagu hadduu bato angalku wuu sii dheeraanaya masaafadu markay korodho xaqa waad ka durkaysaa in badan baad durkaysaa saa awgeed ayaa nebigu wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in la arki doono dad waqti aad waa bariisan doonto adoo mu'mina yusbixu arajulu mu'mina wayumsi kaafira buu nebigu yidhi gelinka dambena u gaalnimo ku dhici doono mid gelinka dambe gaala oo gelinka horena islaamay maxaa dadka sidan u wada ee diintoodii marna ay ugu soo noqonayaan marna ay uga baxayaan wuxuu nebigu ku tilmaamayaa yabiicu diinahu bicaradin min addunya adduunkiisii diintiisiibuu wuxuu siisanayaa in yaroo adduun ka mid ah midi sultad iyo magac iyo maamuus buu siisanayaa midi maal iyo wax buu siisanayaa waxay doontaba ha noqoto shahwaatu nafsiga wax ka mida un marka wuxuu nebigu ku tilmaamayaa qof ilaa iyo xaddiinka baxa ay la gaadhayso oo gelina muslimna gelina gaal noqonaya sababtuna ay tahay hunguriga adduunyo qofka jiitay
ilaahay qur-aanka tusaalayaal badan buu markaa inugu siinayaa nooc walba ka mid ah tusaalayaalka qur-aanku bixiyo waxaa ka mid ah duul culamaa ahaan jiray oo ilaahay aayaadkiisa yaqaanay oo dabeetana fitmoobay oo kadibna kitaabka xagga dambe ka xooray soomaalidu waxay dhahaan wadaadka hebel waa kitaab xoor yacni kitaab buu sidan jiray maantase nin kitaab la weydiinaya maaha kitaabka meel buu iska dhigay shaqo kaluu wadaa waa qof wax garanayay laakiin can qasdin uga weecday meel cidlaa cararay ilaahay markaasu wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin dadka waxaad ku dul akhridaa oo uga warantaa kii warkii baa ilaahay yidhi waxba lamaga magac dhabin kii warkiisa dadka u sheeg kani muxuu ku caanbaxay awalan aataynaahu aayaatina baa ilaahay yidhi aayaadka iyaga baanu siinay waa mid wax garanayay waa mid wax garanayay aqoon-yahan ahaa caalim ahaa laakiin fansalakh baa ilaahay yidhi waa ka siibmay insalakha waxaa la tilmaamaa neefka adhigaa marka haragga laga siibayo kaannamaa kitaabku war soo jooguu leeyo sida iska siibayo ilaahay wuxuu ku tilmaamay fansalakh waa ka siibtay diinkii iyo aayaadkii la siiyey waa ka siibtay oo faatbacahu shayطaan shaydaan baa raacay shaydaan baa raacay isagaaba laga yaabaa hadduu caliimulisaan yahay isagaaba laga yaaba inuu shaydaanka macallin u noqdo shaydaanku dabagalo isaguu noqdo imaamka shaydaan wax ka baranayo saa dadka loo hallaabiyo ama inay isku wadda yihiin oo israaceen fakana min alghaawiin baa ilaahay yidhi inta luntay buu ka mid yahay haawiga waxaa la yidhaahdaa waa ضد الrushd waxaa la yidhahdaa haawiga daalka waxay yidhaahdaan inta badan waa qof aan wax garanayn oo lumay haawiga se waxay yidhahdaa waa qof wax garanayoo lumay ilaahayna nebiga labadaba waa kaafiyey maa dalla saaxibukum wamaa hawaa mid aan badana maaha miduu ka suga weecanayana maaha baa la yidhi ilaahay wuxuu kan ku tilmaamaya inuu haawiinta ka mid yahay kuwa wax garanaya laakiin aan baday xaqa dhinac maray waa dhici karta qof inuu noqdo waa dhici karta inay bulshaduba saa isku raacdo iyadoo xaqa garanaysa inay derderto bulsho badani jamaaco badani dad badani si awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya reer banu israa'iil dad ka mid ah ahlu kitaabkii dad ka mid ah fakhalafa min bacdihim khalfun kuwoodii fiicnaa baa ilaahay ka warramay iyo dad wanaagsan inay lahayeen jiilal hore aabbayaal magac iyo maamuus lahaa inay ku abtirsanayeen laakiin ilaahay wuxuu yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun kuwaa duul baa gadaal maray duulkani maxay ku caanbaxeen awalan warisu lkitaab waa duul dhaxlay kitaabka inta badan mabaadi'da dadka u soo dhintee naf iyo maal u soo huraa kama tagaan dadkay laakiin dhaxalka ku soo gaadhee si qabow ku soo gashay baa inta badan dayaca bilaaba dhaqankeenna waa aragteenoo odayga xoolaha ku dhidadaya shaqaystay aad buu u ilaaliyaa inay ka dayacmin odayguse markuu dhinto carruur iska barwaaqo kori markay xoolaha helaan inba meel bay ka tuuraan oo iyinunbaabay kaga soo hoydaan diinka ciddii u soo dhimatay ee u soo halgantay ee wixii loo soo maray ogayd way xejisataa laakiin waxaa la tilmaamay qolo iyagu dhaxal ku heshay oo aabbayaashood iyo hooyooyinkood iyo dadkii ay ku abtirsanayeen oo muslimiina unbay la dhashay ayunbay ka dhex dhasheen dabeetana islaamnimadu dhaxalkaasay ku soo gaadhay ilaahay wuxuu yidhi kuwii hore qaar baa ka gadaal maray kuwani waa qaar kitaabka dhaxal ku helay laakiin maxaa u caado ah ya'khuduuna carada hada aladna wayaquuluuna sayukfaru lana wain yaatihim caradun milu ya'khuduuh kuwan caadadood waxa weeyaan bidhbidhka adduunye hadday helaan way iska qaataan
dabeetana waxay dhahay ilaahay waa ghafuurur raxiim ilaahay baanu dembi dhaaf ka sugaynaa wuxuu doonuu samaynayaa waxaanu leeyahay ilaahay waa ghafuurur raxiim ilaahay baa noo dembi dhaafi buu taagay ma dembi dhaafkan uu sheegaya ma toobad dhabbaayo bini aadamku waa dhacdaa inuu gafo laakiin uu soo noqdo oo sugmo ما صار نقش السقيتان ما هبا إلى هيلي وياتهم عرض مثله يأخذوه مرة بعد هذا يسوى مرتين هلك يومك وضيها جد كان ساسو هيا با إلى هيلي ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون إلهي وحليم ينقوى بالله لك قادم إلهي سبحانه وتعالى قوى ميانو بلن كقادم ميثاق الكتاب ميان لك قادم إن أنا إلهي وحان حق هيك الشيء كتابك مياني درسين دارت آخرة أياو خير بدن للذين يتقون كوا إلهي كعب صدا ورمانك حقو إذا كغبت با إلهي ليها فلا تعقلون عقل ما نتشرين تبتنا كوا عكس قودا إلهي تلمام يكوي كتابك كل جنا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كوا يجو كتابك هيستا ووحك السوي ما أنسي دينين إلهي كتابك أيها الأحبة مركب بني آدم هدي الزمن كله يراضه امتحانك يا رب بطال واحد مدين يدين تفراك قاضاه أما إن إسكيد هذا إلهي هو غفور رحيم تي وحي دوران صبيا إلهي هو المام يا مؤمنين تي هور رجعنا يكمل هاي نفي نفيس بالدين تودو بحيان كسقمان يقوى وضدا هي سجية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وحكم دبا إلهي لي مؤمنين ترق صدقوا ما عاهدوا الله عليه كرر الشيء وحي إلهي وبلن قادين كسقنا ذي مبدأ أوده منهج إلهي أمدنا بوغوي عنين رقاسي وحكم إذا كوسا كل انتي يكوى وليتشتك هيو سقيا وح اسبدل لنا نقول عين اسبدل لنا الصبينين مبادئ دو دي الدين تودا كلا قالسان أرواح دو دي نفتودا ساد رادد ومصرين منا أقبل يا محي تنازل وحلا إلى هذا إن الدين تودا وحكت قال ما أقبل يا إلى أي كجريون يا إلهي نوحة المام كوا سقمة حلق الشدة نين إلهي سوق الدورة أما نفتو مركا يبحي سهل نقطة توحيدك يكون من دوران أما ملائكة وحرقة حساب مكرية نكيرة حباشة ضدك وقلت ما ضاها النقطة مركا سؤاشة ويدين أيان إلهي وحلي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إلهي واسقا قولك ثابت كابا إلهي كسقا نولش أدون يا آخرة markay geeriyoonayaan iyo noloshooda adduunba iyo aakhira markay tagaane xabaasha ku jiraanba ilaahay kuwaasi waa sugaa ayuha alaaxiba marka meelaha aynu u baahanay inaynu toosnaano ama diinta ku sugnaana waa dhul tiro badan baabu shubahaat buu ka iman karaa waa in diinta qofka laga shaki geliyo casriganna aada u tiro badan waayo waa casri ay fududaatay xumaha in si fudud laysu gaadhsiin karo waa innagan mobil joobka ku wada sidana ee dunida dabadeeda wixii bala ka dhacda laynoo soo warinayo ee lagugu akhrinayo maanta waxaaba fududaatay dad raba xumaha inay ku caanbaxaan oo raba dad badan inuu galo in lacag baa lagu helayahay taasi waxay keensatay markaa shubahaadka la akhrinayo inay tiro badato waagii hore dadka waxa wax u sheegi jiray laba qolo un dowladda oo idaacad ama TV lahayd oo warkeedu censorship soo maro
ama waxaan la qoro madbacada soo maro censorship soo mara iyo sheekh membarka nabi maxamed iska taaga calayhi salaatu wasalaam oo isna diinta ilaalinayo diin ku sugan oo censorship kitaab iyo sunna mara isna hadda waa mimbaru man laa mimbara lah baynu ka maqalnaa maxaa la yidhaahdaa aljaziiri hadda nin waliba waa hadli karaa nin walibana waa warrami karaa nin walibana waa sheegi karaa censorshipna ma jiro cid waliba waxbay sheegi kartaa xataa soomaalidu kuwooda waalan bay dhegaystaan arwaalanoo tiro badan baa baalkan ka soo hadla maadaama shahwaadku ay badan yihiin shubahaadkuna tiro badan yihiin fitankaa tiro badan markaa sugnaantu in alla suga mooyaane way yaraanaysaa dadku inay qumanaadaan wax sahlan maaha inay qumanaadaan maanta waxay u baahan tahay mujaahada bay u baahan tahay hadday tahay shahwat اljins hadday tahay shahwat اlmaal hadday tahay shahwat اljaahi wالsulطaan xirsiga iyo طamaca tirada badan leh dadku maanta aad baa fitanku u badan yihi xagga diinta fitan baa ka socda oo ama ha noqdo dulmi iyo duqaad iyo dadka laaya oo xidha oo daroon ku toogta oo nafta isugu keena oo haddaad dhowr salaadood tukata ku odhanaya terrorist baa tahay dunida maanta taasaa caan ka ah dadkii miidiyaha waaweyn ee dunida la dhagaysta lahaa summad waxay ka dhigeen qof kasta oo muslima inuu shaabadaasi iskaga shaabadaysan yihi marka kollayba marka hore dembiilaata inaad sacdaysa mooyaane halkay qaacidadu ahayd dadku inaanu dembiilayaan ahayn ilaa iyo dembi lagu suga mooyaane waa cagsiga hadda mar haddaada shahaadata dembiilaa tahay inaad sacdayso inaad dembi gelin mooyaane marka fitnadu waa tiro badantay qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramaya dad badan oo diintoodii lagu itixaamay fii suurati alkaaf innahum fityatun aamanuu birabbihim kuwa ilaahay ku tilmaamaya godka galay min alqusuur ila alkuhuuf bay qaateen waxay yidhahdaan abnaa'i almuluuk bay haayeen carruurtii boqorradu dhashay laakiin diin la'aan baa lagu qasbay dabeetana waxay doorteen inay iska hijroodaan xaggay u hijroodeen meel kale markay waayeen god bay galeen laakiin godkaasaa ilaahay ku badbaadiyo 300 sannadood bay god iska jiifeen oo ilaahay arsaaqayo ay jiifeen dabeetana la soo kaakiciyey innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda dhallin bay ahaayeen baa ilaahay leeyay dhallin yaro ilaahay rumeeyey allana hanuun u kordhiyey aayaadkaasi marka ilaahay ka warramo cismada la raacinaya waxa weeyaan fitnatu diin qofka hadday ku dhacdo الصحبة الصالحة iyo aakhira xasuusteeda labadaas ay aayaadku xagga dambe ka tilmaamaya waxaa kaloo qur-aanku inooga warramaya qaar iyaga laba laayo u gubtay asxaabi اlukduud suurati اlburuuj kuwa ilaahay kaga warramayo magaalo dhan oo inta godod loo qoday dhammaanteed dab lagu guray baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya waa magaalo iska dhan oo nin leeyahay ana rabbiyay rumeeya oo yidhi war annagu ilaahay baanu rumaynay dabeetana iyagoo arkaya dab lagu guray oo weliba dabka markii lagu guranayay la daawanayay iyana waa tusaale kale oo sheegaya dadku diintooda siday ugu dhegan yihiin oo ilaahay qur-aanka inoo tilmaamaya xataa haddii lagu gubayo inaad diintaada haysato haddii dalkaaga lagaa saaro ood hijrooto inaad diintaada haysato si awgeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam xilligii maka la joogay ayaa khabaab ibnu arad saxaabigii la odhan jiray xadiiska bukhaari wuxuu leeyahay nebigaan u soo ashtakoonnay isagoo harqoodaalka kacbada jiifa ayaanu u nimi buu yidhi mutawasid biburda ah markaasaanu idhi ilaahay rasuulkiisiiyo maad ilaahay noo baridid dhibtan allah naga kor qaadee maad ilaahay guul noo weydiisi iyo gargaar wuxuu nabigu ku yidhi dadkii idinka horreeyey mid ka mid ah inta la qabto god loo qodo miishaan halka laga saaro ayaa laba loo kala jeexi jiray
arrinkaasina diintooda kamay celin jirin ama gafeedh bira fargeeto bira inta la soo qaado ayaa lafta iyo hilibka lagu kala saari jiray iyagoo nool famaa yasudduhu dalika can diini waxaasina diintooda kamay celin jirin buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam muxuu taariikhda ugaga warramayaa nebigu waxaa la rabaa inay adkaystaan inay habaat laga helayo sugnaan inaan diintoodu waan baahday looma bahalo cunay soomaalidu ku maahmaahi jirta waa lay dhibay diintaada loogama tago waana la maagay diinta loogama baxo saa awgeed ayaa waxaynu u baahannahay diinteenna inaynu ku dheganaano fitanka ilaahay uu inooga warramay waxaa ka mida matala suuratulkahf jimco kasta waynu akhrinaa dadku inay sunnato maalinta jimcada la akhriyo ayuu yaqaanaa maxaa loo akhrinayaa waxay culammadu yidhahdaan ama xadiista ku soo arooray akbar dajaal fi lcaalam soo bixi doona dajaal cawar ninka la yidhaahdo suuradda tani inay tahay waxyaabaa layskaga dafciyo layskaga celiyo nebiguna wuxuu odhan jiray fitno ninkaa fitnadiisa ka weyni dunida soo mari mayso ee addoommaha allow sugma suuraddaa inaad akhrisataana waxay kaaga tahay waxyaabaa ilaahay subxaana wa tacaala dadka kaga celiyo dadka badhbaaba iyagu nicmada ku luma kuwaasi waa shiddadii sugma la leeyahy qur-aanku wuxuu inooga warramayaa qaar iska foqoro ahaayoo lahaa mar uun ilaahay hadduu maal siiyo inta loo dhiibay dabeetana bidhaantiisaba dib loo waayey markuu maalka helay kibir iyo xumayo inuu xuquuqdii ilaahay bixin waayo ka sii qaaday waminhum man caahada allaha lain aataana min fadlih lanasadaqanna walanakuunanna min alsaalixiin waxaa ka mida baa la tilmaamay kuwaa xunxun ee munaafiqiintii ahaa qaar leh ilaahay hadduu fadligiisa wax naga siiyo waa sadaqadaysan lahayn oo dadka saalixiintaa baanu ka mid noqon lahayn markii ilaahay siiyeyna bukhli lagu itixaamay iyo inay diintaba ka jeestaan idan shiddaduna dadka badh waa lumisaa badhna waa sugmaan nicmaduna dadka badh bay lumisaa nicmada lafteedu iyo barwaaqada iyo badhaadhuhu dadka badh buu lumiyaa oo diinxumo ka qaada dadka badhna waa sugmaa sideedaba shahwaatu nafsigu waxay ka mid yihiin waxa laynagu itixaamay waayo bini aadamku xoolaha waa jecelyi ilaahay baana inugu abuuray inaynu xoolo jeclaanno wainahu lixubu اlkhayri lashadiid watuxibuuna almaala xuban jama wauxdirat ilanfus الshux nafta bini aadamka waa iskaga xaadirsan tahay xoolo jacaylka iyo ku dhaafinta laakiin waxaa layna baray sida bakhaylnimada laysaga daayay diintu inoogu yeedhay ee wax loola baxo saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa markii la yidhi wauxdirat ilanfusu shuxa waman yuuqa shuxa nafsihi baa ilaah yidhi qofkii alla ka dhowro bakhaylnimada naftiisa taa macnaheed waxa weeyaan hadday maal tahayna maftuun baato waad imtixaamantay hadday shiddo iyo dhib tahayna waad imtixaamantay haddaad jaah iyo madaxnimo iyo maamuus haysatana waad imtixaamantay laakiin su-aashu waxa weeyaan yaa qumanaan kara yaase toosnaan kara toosnida iyo sugnaanshiyaha dadka inteeba heli karta dad badan oo markaynu dooranayno af macaan inoo sheega oo yidhaahda waxaan baan qabanaya waxaan qabaa markuu siyaasadda gale u meel gaadha baynu dib u weynaa waa imtixaan kale waa jiraa dad sugmi kara oo dee qur-aanka iyo axaadiistuba dad badan oo sugmay bay inooga warramayaan dad badan markii hore masaajidda aynala joogeenoo dad khayr qabay ahaayeen markay maal heleen baaba la waayey ooy rabshadu ka shaqeeyeen dad badan marka fitanku dhacay iyo dagaalada iyo mashaakilku yimaado ninkii shalay tasafulawalka ahaa oo dhig bini aadam u haliilayo qori la ordayuunbaad arki oo le reer hebel haddaynan meel ku ogaanin ama dhig muslim dafirayo le wax aanu idinka gar leenay ma jiro
oo dadka madaxay suga warsoodigiisa filawalka ah xagee waxaagii mareen cibaadadaadii xagee ka baxday yacni reernimada markii la taabtay ayuu kitaab allaba ilaabay meel iska dhigay reerka inuu wax ka dhiciyuunbuu u xidhxidha idan waxoo dhamme waa imtixaan dunidu laakiin waxa isweydiinta leh yaa sugnaanaya yaa diinta ku sugnaanaya oo xejisanaya waxaynu u baahannahay markaa soo koobayaay inaynu cabsida ilaahay laasimno ilaahay waa kaayna leh ilaahay ka cabsada oo walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun waxaa laga yaabaa khudbad kastoo jimca in laydinku akhriyo yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun maalin kasta waxaa laynoo xasuusinayaa khudbad jimco ah waxaa layna leeyahy war hooy adduun waa dhib badan yahe sugnaada maalin kasta waxaa laynoo xasuusinayaa waxaa la ogaya nafta bini aadamka iyo labaclabacdeeda qumanidu inay ku adag tahay oo inuu sugnaadaa inaanay fududayn ilaahayna qur-aanka dhul badan buu inoogu tilmaamayaa dad imtixaanaadka inta la geliyey ku saaqiday hadday siyaasad tahay boqorro gaalnimo doortay baa ilaahay ka warramaya fircoon ka mid yahay oo namruud ka mid yahay oo dad xun boqorro markay xaqa arkeen hanuunayna waa laga warramayaa gabadhii saba ka talinaysay iyo kuwo markay qabteen cadaalad ku maamulay baa laga warramayaa nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan iyo taaluut iyo wixii la mida qaar maal helay oo lumay baa ilaahay ka warramaya fircoonka lahaa laysa lii mulku misra iyo qaaruun iyo dad la nooca kuwo xoole iyo wax helay baa laga warramaya oo dariiqa saxa ah ku sugay sida nebi sulaymaan iyo ilaahay maal iyo boqortooyaba isugu daray kuwo nooc waloo tusaale ah baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka waa inoogu tilmaamay kuwa diintoodii lagu itixaamay baa laga warramayaa ku guulaystay kuwo diinta lagu itixaamayo saaqidayna waa laga warramayaa marka waxaynu leenahay ku soo koobaynaa adduunku waa imtixaan kuwa shahwaad lagu itixaamay oo guulaystay sida nebi yuusuf iyo maryama marka waxaan ku soo gebagabaynayaa ku koobayaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam tucradu اlfitanu cala alquluubi kaalxasiiri cuudan cuuda quluubta in imtixaanaadka loo soo bandhigo iyadoo tiro badan qalbi kasta oo imtixaankaasi guulaysan waayaana dhibic madow in lagu dhigayo kii ku guulaystana dhibic cad in lagu dhigayo dadkuna inuu u qaybsami doono kuwa markaa qalbigu madoobaado oo aan macruufka iyo samuhuba gelin iyo kuwa qalbigooda uu iftiimayo oo haddiiba wax ka dhacaan istikfaarta boobaya oo markiiba ilaahay u soo noqonayo toobad keenaya labadan nooc bay dadku u qaybsami doonaan aakhirka marka waxaan ku soo goobayaa ducada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuuna barayo allahuma yaa muqalliba alquluubi ثبت قلوبنا على دينك أما اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك إنه بريد إلهي بدينه ددال كان بدينه ما لها خير كالوها ينا لازمنه قرآن كآخر سكيس بدينه أسباب بدن باتشرو سويتان ككنتا هاتا سكي قارسين ما ينقود هان وحن لاناي دولك علم جاي الدين جاي الذكر جاي عبادات الوها يو هكفو غاني هديك هلا yaygu wuxuu cunaa buu nebigu tilmaamay adhiga ticda ugu baxda waraabuu xoolaa waa didiyaayo neefka dhinacu u dhaqaaqa kaas buu bahalku eriyadaa marka haddaad dhulka khayrka ka durugtana waad lumi haddaad dhulka khayrka ku nafta ku xeejisana waa lagu xasuusin oo waa lagu waanin oo waad wardiyo oo ilaahay baad ka cabsan oo qur-aan baad dhigan oo diintaadaa kori oo aadna sugitaankaaga badan doonaa وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين